ugu horeyn waxaan jeclahay su'aasha ugu horeysa inaan weydiiyo Professor Cabdishakuur Xasan Fiqi. Professor, sida aan wada ogsoonahay waxbarashadu waxay leedahay heerar kala duwan. Ardaydaana dhammaantood hadda waxay ka baxayaan waxbarashadii jaamacadda oo waxbarashada sare darajadeedii koobaad. haddaba su'aasheena koobaad waxay tahay maxay waxbarashada sare kaga duwan tahay heerarka heerka koobaad ee jaamacadda, maxay kaga duwan tahay heerar kala duwan ee waxbarashada? waxbarashada formalka ah waxbarashada labay u qaybsantaa, mid formal ah iyo mid aan formal ahayn. tan formalka ah waxaa badanaa la yidhaahdaa tan isticmaalka noo keenay waaye, oo nidaamkan inta waqti hoose laga soo bilaabo darajooyin dugsi hoose dhexe sare kadib jaamacad looga baxo. markaas jaranjaradaas ayaa ilaa jaamacadda laga baxo ama laga koreeyo ilaa meesha sare la gaaro ayaa ah mid jaranjaro oo hoosta laga soo bilaabo. jaranjaradana step by step loo fuulaa. marka taas ayaa qofka hadda modernka casriga ah ee la rabo inuu ku howlgalo waxbarasho ama loo qiimeyn karo meelaha laga shaqeynayo wax lagu baranayo inuu heerarkaas soo maro waaye, oona midna ka soo boodin. sida nidaamka ah waa sidaas. markuu sidaas sameeyo oo uu soo gaaro heerkan hadda jaamacadda ah ama mustawaha la yidhaahdo digriga koowaad ee tacliinta sare waaye. waxaa digrii koowaad loo yidhaahdaa dhowr digrii kalaa ka dambeeya. kow asaa laga bilaabay, waxaa loogu bilaaba higher educationka halkaa ka bilaabanaya. kii hore waxaa loo xisaabinayay cunug soo karaya oo childhoodka ka soo baxay oo adolescence soo gaaray. dan waxaa la rabaa skill xoog leh, sida professorka hadda sheegayay suuqa camalka skillka loo rabo inuu yaqaano waaye. marka qaybta marka uu ka doorto markii uu dugsiga sare ka soo baxo, adduunyada kale waa lala taliyaa qofka oo waxaa la fiiriyaa psychologically. doctorada psychologist maadada ku takhasustay raaliga ahaa, anagu curriculum design and methodology baan PhD-gayga uu yahay. laakiin adduunyada kale istishaara la bixiyaa marka dugsiga sare laga baxo. tashi qofkan xaguu ku fiican yahay, waxaa la eegaa qofka miyuulkiisa isaga meesha u jarjeera waa la fiirinayaa iyo sida uu isaga. laakiin annaga ma qabno oo si crash ah ayaa waxaa loo doortaa takhasusyada. takhasusyadaas crashka loo doortay problemka ka taagan waxaa waaye aad isaga ogaanaysaan hadda ood ka baxaysaan wixii ku xiga talaad u baahantihiin. tan hadda maanta la qabanayo ayaa taladu ah. waxaa wax lala yaabaa ah qofka mar haddii takhasus mucayana oo higher education uga baxo, waxaa la rabaa kaas inuu ku sii socdo hal farsamo. qofka haddii hadda electricity uu barto, ardaydii Soomaaliyeed mushkilad badan baa haysata. wuxuu u boodayaa master, waxaa laga yaabaa inuu aado master kale oo human development ah asagoo markii hore electric ka baxay. masterkaas uma dhigmo master normal ah, lianna hadduuba bilaabay oo dhowr bachelorkoo kale weeye, fieldi kale weeyaan. marbaa waxaa naloogu yeeray dad la shaqaalaysiinayo in short list la soo geliyo, meel heer sare ah, mushaharad heer sare laga qaadanayo. marka odayaalaa loo xulay, waxaa la yidhi oo madax bannaan ha la eego short listigaas. shuruuddii methodology-ga aan sameynay, shuruuddii wax lagu diyaarsanayo haddii qofkii soo buuxiyey, intii kale waa bannaanka marka hore. secondly waxaa waaye qofka haddii uu legal advisor uu positionka yahay oo labadiisa shahaado master baa la rabaa aysan isku xigin, isagoon waa off. marka waxaad arkaysaa qof baa public administration ka baxay, markaasuu public health waxbuu haddana master ku sameeyey, labadiisu soo dhejiyey, waa out weeye. waxaa la rabaa
takhasuskaa adiga higher educationka u baxday inaad ku soo socoto raalliha waa mawduuc haddaan ka yara baxay leanna waa guidance-ga oo muhimka in loo sheego ardaydan sanadka afraad wey shaqooyinka skillska waa loo tartamaa meelaha qaar waa iska jiraa meelo iska habacsan laakiin markii runta ay gaarto waa loo tartamayaa sidaas awgeed shahaadooyinkaad isku soo dhigsatay haddaynan ahayn kuwo higher education saxa waxaa weeye mar waliba failure baa tahay daciif baa tahay oo waad ka bixaysaa skillkii si saxa marka hal skill ayaa la rabaa higher education in lagu takhasuso qofku waa inuu bachelorkiisii wuxuu ku qaatay waa inuu subjectiga relateka lale waa inuu ku socdo weeye way ka heer sarreysaa way ka heer sarreysaa mustawaha ugu higher education way mustawahan na rabo qofka inuu u diyaar garoobo skill fara badan oo dadku wax ugu qabto iyo cilmi baare jidka cusub oo cilmi baarinimada bilaabay waxaa jira stepka kale waa cilmi baaris sidaa awgeed labadaasaa laga rabaa wayna ka duwan tahay heerarka kale bachelorku waxaa laga rabaa qofka inuu skill uu leeyahay oo saxa oo si fiican wax ugu bartay oonan failure ku noqon telefoonka oo professorka uusan 5ka awicin ma hadhowto yani ee la rabo inuu wixii bartay si fiican wax u qori karo aad ugu takhasusay kadibna researcher inuu u diyaar garoobay inuu yahay nin stepka researchka lugta saaray waad mahadsantahay doctore talooyinkii ayaan ku jirnaa ardaydan intooda badan waxay u badan tahay inay ka fakarayaan inay masters iyo PhD ay ku daraan waxbarashadooda ardayga raba inta jaamacaddii dhameeyey takhasus inuu sameeyo ama gudaha ka sameeyo ama dibadda ka sameeyo talooyinka ugu muhiimsan ee aad siin lahayd soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim talooyinka waxaa ku daraa horta allaha barakeeyo annagu macallimiinta haddaanu nahay anigu waxyaaba aan la yaaba ayaa jira muddaan wax soo dhigaynay waxaa laga yaaba aniga jaamacadda inaan 1997 iyo meelaha yani marka magaaladan muqdisho arday badan ayaa qalin jebisay kumaankum ayaan xafladaha tagnaa oo hadda intay jaamacaduhu soo bateen waad aragteen hoolal waaweyn oo koofiyado fara badan la gashado magaaladii waxaan u maleeyeyba nuskeedii iyo ka badan in ay jaamacado ka baxeen haddana wixii way noo toosi la'yihiin hataa waad ogtihiinoo magaaladan wax sharci ah ama edeb ah ama khayrkii habeenkii salaada subax markaad aad kacdid habeenbarkii markii la wada aadaamo masaajidada salaada la tukado wax ganuunac yeeraayo oo wardi ah quraan ah haddana waad aragteen dhibaatada jirta markaan jaamacadii ku soo laabanno skilliska oo shaqada lagu qabanayo oo serviceka lagu qabanayo qofkaan la baray meel ha noo yaallo waxaa dhinac socday qofkii aqoon mucayana ayuu gaaray markii horena tarbiyo ama ayaa la socotay waxbarashada tarbiya iyo tacliim wada socotaa maxay wax isu bedeli la'yihiin behaviorkii dadkii ahlu cilmiga ah cilmigii la soo baray maxaan inta dadkii Soomaaliyeed ay isbedelaan oo ay wax fiican oo fara badan oo dalkooda ka qabtaan maxaa loo waayay waxaan u rajaynaa markasta ardayda shahaadada kaliya ma ahee adigu akhlaaqdaada shakhsiga rafiica ah muwaadinnimada saalixa ee dalkan inaad leedahay oo muslim tahay ood ilaahay ku xiran tahay lagu soo baray intaas bal bulshadan ku soo biiri oo kaliya ha fiirinin shahaadaan qaatay bes marka waxaa isbedelaan waxaan leenahay suluugiina ama behaviorkiina waxa iska bedelo oo ustaadku ayad buu hadday soo dadaalay liman shaa minkum an yastaqiima war bal horta istiqaamada dalkii waxbaa loo bartay dadka oo dhan waxbaa la baray magaaladan ma waxbarashadii macallimiintii baa
wax khaldanaa ma dadkii wax la baray baa wax kale ka dhiman oo si kale wax yihiin marka taas horta suluugu waa inay beddesho wixii la bartay tan ku xigta aad weydiisay raalli ahaw waxbarashada sare aadayo hadda ay tin waan ku daray takhasuskaaga wixii aad markii hore dooratay keliya ku soco oo waxaa la arkay sidaa sheegaya hadda ay ti shaqooyinku marka la soo doonto laba shahaadoon islahayn masterkan wuxuu ku soo qaatay public health halkana business administration baa jira ku qaatay dhibaato marka waxay ka taagan tahay ninkan ma takhasus maaha takhasus waxaa la rabaa waa inaad masters kusii samaysay cilmi baaristaadu hawshii hore aad qabyada ahayd ee bachelorka kadib PhD ku samaysay sidaa yani arrintaas muhiim bay idin tahay inaad ku samaysaan marka iska hagaajiya iska nidaamiya aad u mahadsantahay